Soo dhawaada saaxiibayaal, haddii taa markii kugu horeysaan meeshaan imaato subscribe channelka fiidiyowgan noo la galay bilowga filinkeena waxaa aragnaa Mii oo hurdada kasoo kacday xilli hore subax. Mii waxay imaanaysaa jikada guriga waxayna soo qaadanaysaa mindi waxayna gashanaysaa jaakada jaabkeeda. Mii oo subax alasayda kasii baxaysa guriga banaanka guriga ka qaadanaysa gaarigeeda. Waxaa aragnaa Mii oo ku socota wadada looga baxo magaalada una socoto banaanka magaalada. Mii waxay tegaysaa meel duhur ah oo cidlo ah iyada oo gaarigeeda wadata. Mii ayaa gaariga istaajinaysa meesha laga galo buurta ugu weyn magaalada. Waxaa aragnaa Mii oo ku socota meel dhagaxaan badan taalo una socota buurta ugu dheer magaalada korkeeda inay fog. Mii ayaa soo koraysa buurta ugu dheer magaalada meesha ugu sareysa waxayna u tegaysaa geed weyn hoostiisa ay yaalaan sawiro cunug yar sawirkiisa ayaan aragnaa. Mii ayaa geedka salkiisa ku qoraysa magaca cunugeeda iyo ninkeeda iyo magaceedaba. waxaa aragnaa waxyar kadib Mii oo taagan buurta ugu dheer magaalada fiideeda. Mii ayaa bilaabaysa welwel aad u weyn waxayna isku dayaysaa inay isku tuurto buurta ay nafta isdhaafiso. Mii oo rabta inay buurta iska tuurto taagan afka hore ee buurta ayaa dhinaceeda waxaa ka imaanaya ninkan oo magaciisa la yiraahdo Leo ayaa ka nixinaya Mii oo dhahay waxaad doonaysaa inaad si fudud isku disho ma aha inaad disho. waxaa jirta nolosha haddeerta nolol ka fiican aad heli karto haddaad raadiso. wuuna ka tegaya Leo. cabaar kadib Leo oo sii socda keynta buurta ayay ka daba imaanaysaa Mii oo dhahaysa waa inaan horka kasii raacaa waayo waxaan rabaa inaan xaafadeeda ula hore ayuu usoo wadaya. waxaan aragnaa labadooda gaari oo is ag taala. Mii ayaa isku dayaysa inay gaarigeeda wadato laakiin daaqada ayaa u furmi weynaysaa. Leo ayaa arkaya wuxuu leeyahay waa ujeeda inay daaqada kuu furmi ku caawiya. waxay leedahay iska daa aniga ayaa geli kara laakiin Leo wuu soo degaya gadaasheeda ayuu ka imaanaya. Mii ayaa arkayda dallad oo gacanta ku wata Leo waxay leedahay waxaad ka cabsanaysaa inuu roob imaado. wuxuu leeyahay maya wax rooba kama cabsanayo laakiin Leo wuxuu bilaabayaa inuu birtii caloosha u qabto oo koronto xoog leh. Leo wuxuu bilaabayaa inuu lugaha gacmaha ka xiro Mii oona soo saaro gaarigiisa kursiga. waxaa aragnaa Leo wax yar kadib waxaan arkaynaa Mii oo soo naaxaysa gaariga Leo gadaasheeda iyadoo saaran. waxay bilaabaysaa isla markii aragtay inay gacmaha lugaha ka xiran tahay inay isticmaalo caddeeda smartiga laakiin u shaqaynaysaa internet la'aan. Leo ayaa ku leh gaarigan malaha wax internet ah isku day inaad maasho saacadaada. Mii ayaa kala soo baxday jaabka mindida ee saaka soo qaatay waxay isku dayaysaa inay iska jirto xarigga gadaal ugu xiran way iska jaraysaa isla markii weerar ayay ku qaadaysaa laakiin gaariga ayaa wadada ka baxay wuxuuna galaya jid aad u weyn. mar kadib waxaa aragnaa Mii oo soo naaxaysa gaariga kursiga dambe waxay isku dayaysaa inay ka baxdo laakiin Leo ayaa si fudud usoo qabanaya. markii xarigga gaariga kursigeeda ayay ku xijinaysaa asigana kursiga ayuu seexinaya wuxuuna ka fakanayaa xarigga Leo. Mii ayaa mar kale midida gacan ku dhigaysa laakiin si fudud ayuu kala tuuraya. waxaa aragnaa Mii oo midida gacanta ku wadato iyo Leo oo isku dayo inuu si fudud u qaado midida. wuxuu jaab ka soo bixinaya wuxuuna leeyahay cirbadan adiga ayaa ku diray 20 daqiiqo kadibna waxaad noqonaysaa barleys waa inaad keentaa midida. way ka cararay waxayna ku dhex fakanaysaa gudaha keynta weyn. midida ayaa ka dhaleysa. waxaa aragnaa Mii oo cararaysa gudaha keynta weyn gadaasheeda ayuu ka imaanaya Leo wuxuu leeyahay si walbaad u cararto ogoo meel miga tegaysid waa inaad anigii soo raacdaa. waxay bilaabaysaa inay gacmaheeda faraheeda ay fiiriso inay barleys noqdeen hal mid ku shaqaynaysaa. qadar kabacdi lugaheeda lug ka mid ah ayaa isla markii barleys noqonaysaa. Mii ayaa dhulka ku dhacaysa ayadoo lugaheeda ka socona isla markii waxay bilaabaysaa inay gacmaha iyo xabadka ku gurguurato. waxaan aragnaa Mii oo gacmaha ku socota waxay gelaysaa geedka weyn hoostiisa laakiin Leo ayaa kor taagan oo geedka korkiisa taagan asagoo ayada raadinaya. gacanteeda ayaa waxaa ku soo aruuraya cayayaan tiro badan. waxay dareemaysaa inay ag jeefto gud weyn oo cayayaanada ay ka buuxaan. isla markii Mii ayaa adkaysa weynaysa wayna kheylinaysaa. Leo ayaa maqlay wuu kusoo laabanaya isla markii waxay arkaysaa wiil meesha maraya. Mii way isku tuuraysaa biyaha ayaa qaadaya isla markii waxaa aragnaa Mii oo dul sabeynaysa biyaha webiga. Mii ayaa qabsanaysa tiir weyn oo ku dhex yaalay webiga isla markiina waxay ugu soo bixaysaa banaanka webiga. waxaa arkaynaa hal daqiiqo oo u haray Mii si ay u noqoto barleys dhammaystiran. Mii ayaa si tabar la'aana dhulka u gurguuranaysa isla markii meesha ayay ku meelbeelaysaa. waxaa u imaanaya nin beeraley wuxuuna arkaya inaysan qoftan wax dhaqaaq lahayn indhaha meel aan ahayn dhaqaaji karin. wuxuu doonaya gaari gacankiisa wuuna ku qaadaya Mii gudaha gurigiisa ayuu geenaya. wuxuu isku dayayaa inuu dabiibo laakiin qada kadib waxaa soo garaacaya albaabka. waxay leedahay isku furin iyadoo dhan ka bilqilsiinaysa. wuu dareemaya inay wax qaldan yihiin laakiin wuxuu tagaya albaabka uu kasoo furaya. Leo ayaa dhahaya faya iga soo dhowey meeshan ayaanu soo aaday maarag albaabka ayuu ka xiraya xulimaan arag iga tag wuu kasoo tegaya laakiin daqiiqad kadib waxaa halkaasoo gadaashiisa taagan oo soo galay gudaha guriga. odaga guriga ayaa isku dayaya inuu u bootay wuxuu leeyahay booliska ayaan kugu wacaya maxaa u soo gashay laakiin Leo wuxuu bilaabayaa inuu si caadi waxaa aragnaa Mii oo ku jirto kursi uu ku fadhiyo Leo gadaashiisa laakiin ma arkayo Leo. isla markii Leo ayaa taleefon ka qaaday odaga laakiin odaga wuxuu kala tuurayaa faalo weyn oo meesha yaalo waa ka buuxeen wuxuuna wacayaa booliska laakiin isla markii mindi ayuu soo qaadanaya Leo odaga ayuu lugta ka gelinaya. markuu soo dhacana caloosha ayuu ka gelinaya odaga dhab ayuu ku takhalusaya. Leo ayaa dilaya odaga guriga isla markiina wuxuu soo qaadanaya shidaal wuxuuna bilaabaya inuu ku bilbilo guriga oo dhan meel walba oo ka mid ah si uu u gubo. Mii ayaa isku dayaysa in dhaqdhaqaaq samayso laakiin way u suurtageli weynaysaa. dhaqaaqeedana ma uu dareemayo wuuna iska baxayaa. waxaan aragnaa guriga odaga oo dhammaan dab isqabsaday xitaa asiga. Mii ayaa gacanteeda si tabar la'aana usoo qabanaysa daaqada xarigeeda. Leo ayaa raacaya gaariga odaga dareemaya Leo in guriga lagu jiro dhaqsin ayuu ugu soo laabanaya guriga weli ku jirto guriga wuxuuna kala tuuraya miiska weyn qaadaya oo soo badbaadinaya. waxaa aragnaa guriga odaga oo dab isqabsaday iyo Mii
oo gacanta kusoo dhigay mar labaad Lee wuxuuna kusoo qaadanaya gaariga ninkii beeraleyda. Mar kale waxaan aragnaa Leo iyo Mei oo taagan kaalin shidaal wuxuuna isku dayayaa inuu gaariga ku shubto shidaal. Banaanka ayuu ugu soo baxayaa gaariga, isla markii markuu shidaalka soo qaato meesha way kasoo dhaqaaqayaan Lee iyo Mio ayaa waxyar dareenkeedu kusoo laabanaya iyadoo meel keena uu taagan yahay ee gadaasheeda waxaa ka imaanaya nin booliska. Ninka booliska wuxuu arkaya gabadha gaariga saaran oo wax dhaqdhaqaaq aanan lahayn, laakiin wuu ka tegaya. Wuxuu arkaa Leo oo gaarigiisa kasoo hoos baxay u tegaya wuxuu leeyahay waa inaad keentaa aqoonsigaada, maxaad ka qabanaysa meeshaan? Wuxuu leeyahay gaarigan ayaa iga hadlaa waan kiidan rabay. Mia ayaa isku dayaysa inay gaariga daaqadiisa dejiyo si ay u dareensiiso ninka booliska. Wuu dareemaya wuuna u imaanaya wuxuu leeyahay yaa saaran gaariga maxayse tahay dhibka? Wuu arkaya gabadha inaysan wax dhaqdhaqaaq lahayn ee wax qaldan yihiin. Isla markii wuxuu bilaabaya inuu wax raadiyo wuxuuna arkayaa irbadii lagu duray gabadha wuuna dareemaya. Leo ayaa gadaal ugu imaanaya wuxuuna madaxa ugu dhufanaya bir weyn. Mar labaad ayuu u celinayaa birta oo madaxa ayuu ugu dhufanaya si toos ah ugu takhalusaya ninka booliska. Waxaa aragnaa Leo oo soo qaatay biskooladii ninka booliska, gaarigii ninka booliskana meesha ku gubay kana soo wadanaya. Mia ayaa jaanis ku helaysaa irbadii waxayna isku dayaysaa inay ku muddo, laakiin waxay awoodi weynaysaa inay irbada ku socodsiiso jirkiisa maadaama ay barleysta weli daawada ay ku dambayso. Leo ayaa soo saaraya doon Mei wuxuuna keenayaa gudaha. Leo ayaa isku dayaya inuu usoo dhawaado Mei, laakiin si dhaqsi ah weerar ayay ku qaadaysaa Mei. Toori weyn waxay ka gelinaysaa qoorta. Wuxuu isku dayaya inuu biskoolada soo baxo, laakiin waxay leexinaysaa doonta oo biskoolada waxay ku fulinaysaa banaanka doonta. Isagana wuxuu ka dhacayaa doonta. Ayada ayaa isku dayaysa inay soo qabsato biskoolada way gacan ku dhigtay. Leo oo isku dayay inuu doonta usoo koro mar labaad si toos ayuu doonta ugu dhacayaa. Waxaan aragnaa Mei oo ku rafanaysa gudaha doonta iyo Leo oo badda dhinaceeda kale usii gurguuranaya isagoo dhaawaca. Mei ayaa doonta waxaa usoo galaya biyo. Waxaa dhaawac gaaray qaybo ka mid a doonta oo xabadihii ayaa gaaray waxaana kasoo gelaya biyo aad u badan. Mei waxay dareemaysaa inay biyaha kusii harqamayso wax yar wixii ka dambeeyo. Mei ayaa biyaha kusii harqamaysaa iyadoo isku dayaysa inay badbaadiso. Waxayna isku dayaysaa inay dhinaca kale xeebta u dabaalato iyadoo gacmaha iyo lugaha ka xiran, laakiin nasiib wanaag waxay nasiib u helaysaa inay ka badbaado biyaha una soo baxdo banaanka xeebta. Waxaa aragnaa Mei iyadoo daawadii kasii bixayso jirkeeda waxayna u tegaysaa Leo oo banaanka xeebta yaalla asagoo nafta kasii socoto. Mei ayaa si xun u fiirinaysa Leo oo dhimanayo meydkiisa oo yaalo dhinaca webiga iyo iyadoo la taagan ayuu filimkan halkaa ku dhamaanaya.